waxaad naga dhagaysanaysaan Washington marna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Cabdikariim Cabdullaahi Olol kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadkan ayaa waxaa marti noogu ah barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka Abwaan Hurran Walawal oo dhawaantani ku wareysanay magaalada Laascaanood. Abwaanka ayaanu ka wareysan doonaa dhaqankii hore ee Soomaaliyeed iyo sida haweenka ay u qadarin jireen raggii hore gaar ahaan xilliga miyiga. Abwaanka ayaa sidoo kale ka sheekayn doonaa ciyaartii caanka ahayd ee isaga iyo dhex martay Cambaro taasoo geyga Soomaalida si weyn looga yaqaanay. guud ahaan deegaanada Soomaalida si weyn ay dadku ilaa haatan u hadalhayaan. inta ilaahay cimriga kugu soo simay hadda aad joogto iyo waayii hore bal dadkeena dhageysanaya bal uga war. bismillaah alxamdulillaah waxaan ka sheekaynayaa in yar noloshii hablaha hore. inanta tacabkeedu wuxuu bilaabmi jiray iyadoo uurka hooyadeed ku jirta. waxaa la dooni jiray qof dumar ah oo suuban. waxaa la odhan jiray waa intaasay ina noqotaa hebla u doonaha qabatee. islaanta waxaa lagu yaqaanaa xishood iyo isdhowris. markay soo dhacdo inanka jirjirkaa loo jiifiyaa, inantana xagga midig baa loo jiifiyaa, labada bawdaa la isu saaraa, haddii ay kala qaadana waa la isku xidhaa. waxaa loo sheegay inanta daadaa loogu bilaabay inay mamnuucaad sidato wax waliba doonayaan oo ay ilaaliso ayaa maalinta hooyadu kasii bilaabaysa. waxay ku xigtaa inanku marka uu laba jeer waa yidhaahdaaba yaa la canqaniyaa. inantu ilaa ay qallasho oo mandheerta laga saxo oo xundhurta loo xidho oo xabka laga burburiyo looma canqaniyo. samirkaa la tusaya ay u bilaabantay in samirka la baro ayaa ku jirta halkaa. inanta markay dhalato qof dumara soo hadasha waxaa la heblaa soo socota, waxaa la hor joogsado celiya, heblo u yeedhaa soo ballayse, heblaa loo yeedhaa, heblana waa la celiyaa. heblada waxaa lagu ogyahay asluub iyo xishood iyo dhowrsanaan ayaa lagu ogyahay loo soo gelinaya. taa kalena qaylada way qof dumar oo labada ciil gududood qaylisa, sidaas daraaddeed baa looga reebayaa. waxaa ku shana inanka geed baa la saaraa mandheertiisa. inanka mandheertiisa geed baa la saaraa, waxaana loo dhiibaa laba inan baa waraf loo dhiibaa. waxaa la yidhahdaa galaydh iyo gorgor waxaan ahayn iyaanu cunin haadka inanku si aanu fulow noqono uu kaalintiisa u buuxiyo. inanta god baa loo qodaa, il baa loo sameeyaa, caleen baa lagu goglaa, caleen baa dusha lagaga daadiyaa, waa la dhigaa, caleen baa laga buuxiyaa. 3 geed oo baa laysu maraa caleentooda oo lagu wada shubaa. caleentaasaa loo gogol dhigaa, dushana lagaga shubaa, waana la aasaa. waxaa looga jeedaa asturaanta iyo is-ilaalinta. abwaana waxaynu la soconaa oo dhaqanka Soomaalida si weyn ugu xooganaa qadarinta gabdhaha gaar ahaan in la ilaaliyo oo markay yimaadaan goobaha ciyaaraha laga tumayo marka ay balka waran sida ay ugu weyneed marka raggii hore Soomaaliyeed waxyaabaad ka xusuusatid ama adigu aad soo gaadhay ceebta ka ahaa maxay ahaayeen? inanta horta sidan hablaha loo arkayo looma arki jirin. aragtideedu waxay ahayd aragti diiq ah oo iyada oo dhaan wada iyo iyada oo xoolo la joogta ama awr doonaysa ayuunbaa la arki jiray inta badan. aragga laga faa'iidaystaa labada jeer buu ugu badnaa, awrta inay galabtii doonto iyo inay dhaan wado. marka hablaha waana la ilaalin jiray, iyana way is-ilaalin jireen. waa la ilaalin jiray oo inanta hooyadu way u tirsanayd meesha ay u dirayso ee dibadda ku baxayso. guriga waa loogu iman jiray, xoolana waa loogu dhex tegi jiray, laakiin ma aha sida caadiga ah in ninku madax banaana isaga helo. waa inuu dadku og yahay oo waayeelku warkaa hooyadeed warka haysa sida badan. balaanka sheegno sahanka inanta sahankeeda ayaanu yar ka soo qaadanaynaa. inanta sahankeedu inan baa aabaheedu yimi wuxuu ihi aabe nin baan ku siiyey. waxay tihi waa aabe waa kuma? wayna hebel buu yidhi. waxay tihi ma hebel baa? haa buu yidhi. waxay tihi aabe iga daa.
wuxuu aabe waa reer xoolole oo yarad badan siinaya ablahana yarad kale xukumi jiray markaa iyaguna waa ku baayactami jireen waalidkuna waa ku baayici jiray waxay tidhi aabe iga daa ninkaa wuxuu yidhi maxaad ku aragta waxay tidhi aabe marka sheekooyinku waa dhaadheer yihiin waan isku soo xidhaya si ay usoo gaabato waxay tidhi aabe waa ubadkiisa maciiltire oordiisa moohintire ninkaasi xididkooda kama roge ehelkii ma garabsade adduunkii kama dherga weeye bay tiri wuxuu yidhi intaa imise jeer baad ninkaa aragta waxay tii 3 jeer baan bidhaantiisa arka waana adigoo aad iyo aad u mahadsan inagoo ku dhex jirna barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka ee VOA abwaana waxaa jiray waxaad si weyn caan uga ahayd ciyaaraha bal ka waran dhanka ciyaaraha iyo gabdhaha xilligaasi dadkii hore ee Soomaaliyeed iyo kuwa hadda jooga waxyaabahaas ku soo gaadhay bal nooga waran Soomaalida horta markii hore waxay ahayd safarka idaacada wax baahisa bay ahayd tala isku bartana waa ahayd ee dadku isku barto kolaha dadku isku barto tamaanta joogtana dee magaala la iska eegtaa halkaa inan baanu la ciyaaray waxa kaaga filan inan baanu la ciyaaray anagoo geljiro oo badan oo isku reera habeenkii dambe waa ka tagnay markii aynu la ciyaaray iyadoo raaliya baanu ka tagnay habeenkii dambe qolo kale u timi waa la ciyaarta waana loo sheegay waxaa la yidhi inantii reer hebel baa la ciyaaray waanu ka qaroonna sidee inantaynu la ciyaaray reer hebel loola ciyaaraa waxaanu isugu daysana wayna ciyaarayn ciyaarteeni bay qawaday rag caawa inagu celiyo ciyaarta ka dhirgin waa ku soo noqona marka aanu unimi bay noo soo baxday waxaanu idhi sida geeyadii caad waxaan ku carbinayaa curubtan wada ilmaadeed iyo cuurkan kugu soo dhuray calcalyada xadeeda iyo cusubka kugu sahan tegey sida caalin diimeed casharka kugu dhigayaa sida caydi boqordhale caanaha kugu habayaa sidaa tahay cambaradheer ama canab ismaaciil caalanka kuu dul sulayaa canda dawlka geela leeyo yaaga marin cilninadu markaa dee fariin baad u dirtay fariin baan u diray waa la joogaa waa ila taagan tahay waa la boodayaa imankana waxaan idhi hablayow waqtigan maanta ana waxaa kaaga filan hablayow toob hariiriyay iyo teenis dibadda laga keeniyo timan fooshood loo jaro iyo kabaha dhibta taagana taakada dhulka u jira tamashlaynta suuqyadu tayo iyo uraad ma leh waxaa gabadh la tooydaa la isu wada tilmaamaa hanad lagu taxgeliyaa xidid lagu taxgeliyaa hadba inanka tulmooniyo hanad maal ka tooxa iyaduna tisqaadaa markay aabba togayaa iyo tajalmaan markay hooyo togayaa iyo tajalmaan oo aabba iyo walaalna qabka tilshaa iyo tol wanaagsan leedahay sidii faras taleexiyo markii turugu buuxsamay farxnaa la tababaray tifka laga idlayaa tacliin loo dhameeyaa marse hadday tagaasida iyo kala taqaan hudheelada waqtigaantu kuu socono istareerka tuutaleed iyo tuugu isugu hadhay ka tayaaqida suurimada aniga iyo nintii riya iyo taajir xoolo kama dhuro dhuug waa iska tagagasado marka labadii dhaqan baad isku xidhay dhaqankii hore aad usoo joogtay ee wanaagga lahaa iyo ka hadda marba waxay nagu joogtay maalina waxaasay nagu joogtay de waa markii uu 100 baa ku mehersanaysaan xaaji cumar xamid 100 baa ku mehersanaysaan oo 100 baa ka qaadaysaan oo fardaha iyo qoryaha seetaan baa ka tegaysaan haddaa gabadhayda doonaysaan intiiba loo yeelay ayaa waqtigaasay ahayd anigu markaan ka sheekaynaya gabadhu waxay ahayd shay qaaliya qurna u gooyi jirtay qoomona u dhici jireen qurna u gooyi jirtay qabnana lagu dhamayn jiray ayay ahayd oo sheekooyinka caanka ah ee dadka Soomaaliyeed ka wada dharagsan yihiin waa ciyaartii caanka ahayd adiga iyo cambareydin dhex martay qisooyinkaasi waxay ahaayeen qisooyin raad ku reebay dadka guud ahaan deegaanada Soomaalida ilaa haddana la dhageysto balka waran de horta aan ka soo qaadana aniga iyo cambare waxaan isugu nimi baaruus buu ahaa labada qof waa qaybsanaayeen oo gabadhana anaga ahayd inankuna cambaru la qolo ahaa cambare abri wadaag baanuna isfuraas baana dhalay laakiin ismaanu sheegan markaas waxaad ku garataa cambaro markii aan soo qaatay inantii markaan la hadlay waxay markiiba iigu horreysisay niman halowla maadhiin iyo 100 baar madow hurin oo la heshiinana aabbahay haradaan u dhigadayo hadal maanigoo furo markaan idhi gurigiina ina geeyo hararkaagagii gobol markii aan ku idhi waxay tidhi waata iyo heestaa keentay niman halowla maadhiin iyo 100 baar madow hurin 100 baar madow waa geel niman halowla maadhiin iyo 100 baar madow hurin oo la heshiinana aabbahay haradaan u dhigadayo hadal maanigoo furo hadalkayga mamnuucahay marka waxay ku dhan tahay wax iska celin baa anigana waxay iska celin baa inay xaqiiqo bay ka hadlaysay waxyaabaha abwaane heestaas oo kale ciyaartaada arooska isugu timaadeen aadan cambarana garanaynin adiguna aad si aad arooska u bisho adiga iyo xilliga dhalinyarada u timaadeen maxaa ka dhigay inay noqoto iyo hadda la joogo
heesihii ugu saamaynta badnaa ee taariikhda gala maxaa ka dhigayna hablaha Soomaalidu suugaamaysatay inta ba aad ugu jirtay sida aan ka soo qaado hodanka waaje kubangeeda dheer ma laga jiri gowraarna caws ma leh hawdna weel garbaxa ma leh gabar yar xilqaad ma leh ari yar gasiin ma leh kaanya caana badan ma leh koombaare nabad ma leh marwo gocodilwaad ma leh baxayl gogol macaan ma leh gacan fuule awood ma leh nin xigaalkii gowracay guul iyo kufaan ma leh guurtida cabta waa jilaafku gubasho mooyee xuquuqa jabeel ma leh inkastuu gawan yahay ama jiray gobaysane nin galbeed ku soo koray malagadiya taariikh reer hebel oo reerna way maagtay oo waxay tidhi guur ma laha anigu kaama sheego waxaad ku garanaysaa aasaaraha habluhu ay wax ku dooni jireen cambara dheer waxay dadka kaga goonahayd xikaayad aan qof dumara weligeed lagu maqal bay lahayd inay ugun baa tahayna golaha lagama raggii ninkii ii heesayay markuu taa soo qaatay oo kale gumbuu igu sheegay axmed ow dabaalkii daayeerkii reer guban dawicii hoolifta lahaa daynabiyada madooba ilkaa dabarka ku lahaa caawana didiiftii iyo daaleebihiisii iyo soo celi dabarihii markii uu samaar daaqay dalsan iyo ugubaad helay loo daayay geedaha riyihii u darareen bayna walamal dabacgalay waa kaa darkii laaskiyo doolo sheegtay iyo cayn gunta hadalku kuma duxo gunta hadalku kuma duxo oo ducufadu xishood ma geydee ku dawoobo wararkan u dulmaray xalay idhiye yaa yidhahda doqonya waa iska rarin dareemada isagu waa kaas wuxuu ugu yiri inuu gumeedka marka gabadhii oo ka xishootay xaashalilla waxay diideen qabiilka ku tirada gumbaati jawaabtii ee gabadhu tiri isagu oo ay kaga hortimid taasa waxay muujisay dareen kale qoladiina heesaysay aniga haybtay u raacday Axmed oo lagu yiri waxaan mooday hadallada anigu inaan haweenaado haylaha ka yar ridayo idinku ay u faysaan waa maxay halbowlaha iyo wadnaha dhiig qaabaya haddaba sheekadii hunugto dawda imaansaday oo biyaha hortooda arka dabadoodu waa huubay hiileeda baa jiray halkan ugu yar xira marka taasina waxay ka hadlaysaa hurrade in barta nabadgeliyadii iyada heesta wada iyada ka waayeela iyada culimaa iyada nabadoona iyada deewata waad maqlaysaa Soomaad garan waxaad kala ku garanaysaa qadarinta hadalka inay ugun baa tahayna golaha lagama oran karo hadalku ku haasawdo la gartana ma oran laakiin guurti baa tidhi tantu waa gal iyo xarig iyo silsiladan la goyn karine buraha gushoodii iyo guban baad ku aan qaaday waxa kuugu wacan inaad riya qabsato oo aad riya mooyo wax kala garan weydo meeshaad ku kortay baa riya mooyana wax kala joogin waxay tidhi inay ugun baa tahayna golaha lagama oran karo hadalku ku haasawdo la gartana ma oran laakiin guurti baa tidhi tantu waa gal iyo xarig iyo silsiladan la goyn karine buraha gushoodii iyo guban baad ku aan qaaday riyaha ugu mara guriga oo heetaan in ragoo la gowraco baan ka sheegay isku iman geel xoolo kuma jiro runtii waxay ahayd madal aad u wanaagsan sheekadaasina waxay noqotay sheeko caana waxyaabaha xusuusta kugu reebay ee waayaha taariikhdaada markasta aad xusuusatid maxaa ka mid ah hurub xilliyadaas horta cambara dheer marna niyadeeda kama baxdo ereyada qodobada ay isticmaashay daraadeed Soomaad garan waxa la yiri hurro waday hayan qala jira yiri hadan ruux qamoon qabo wuxuu sugayo mooyo dhagihiisa awraar iyo hadal iyo kuma duxo dhaguhu haday martiyiin hoon bay garanayaan nin baahan waxa la yiri hurro waday hayan qala jira yiri hadan ruux qamoon qabo wuxuu sugayo mooyo dhagihiisa awraar iyo hadal iyo kuma duxo gurigu wad kama taliye halabuurku sarseeliyo hata taqa ka bixi waaye marka hore qof leeyfo waxa jira abaar qabe mahuranka iyo dariskiyo hooyadayba weydiiyo waligay halaag mudayo waalidkay hoohay ma oran holana la daran deeliya gaajo qaadaya weyn kuma korin huriyo qodista mooti oo igu huursan qariyo ee hastaanay ma helin hablaweyn mid yar dhaafto gayanka hareer ma yabuna ma haydara quruxdana hirgeeda leeyahay madar ducul hoosta iyo fadan qalayba gubaana haybteena ma qabin oo halqiga reerka ugu badan hodanimana ugu dhow hartu ee bayga dhigay maxaan hooyigi gubaliyaanta yaraha iyo dooriyaha tarash ku falaya cambarada waxa lama ilaawana qodobadeeda iyo ereyada isticmaashay ayaa aad uga duwan haasawi markaa joogay adduunka bal ka waran hadda haasawi sida uu quruxda badnaa taariikhdan hadda aynu ku jiro waxa markaad aragtid lagaaga sheekeeyo waxa miiga ka dhacaya ama deegaanada Soomaalida ka warreem maxaa maskaxdaada ku soo dhaca on ku jecelahay meel nooma dhaafo imanka haasawaha jooga waan ku jecelahay suugaan male oo yarad male oo xirasho male oo ku aftahanimo male oo ku soo noqosho male oo fikrad lagu xisaabtamo berri maxay noqon doontaa male ila waxa lagu xisaabtamo ninka reer Soomaaliya waa inuu muddo loo sii shaqaysan jiray
aabow mar baa igu hadhay mawsinkii riday aabow haddaan mawdku dilin maahay rey dhali aabow mar qura waadan arag midab haldhaaley aabow ibne faarax iyo mahadha weeyaan aabow qabiiliga marweyn haygu madiyeyn aabow ragmanidiisa uu manasaba cisbaan aadan dibi inta waxaa kaaga filan halka qiimaha ay ku tagtay iyo heerka imanayso habluhu qiimaha ay lahaayeen iyo xikaayadoodana waxaa kaaga filan dee cambara dheer qodobadeedaasaa kaaga filan. barnaamijkeena inagoo soo xidhaynaa waktigeenu ugu talagalay waxyaabaad abwaana ku talinayso waad soo jeedinayso maxay tahay iyagoo dadka ku dhagaysanaya guud ahaan maxaad ku talinaysaa? 3 shay baan ku talinaya. inanka guursanayana waxaan kula talin lahaa gabdhaha guurkaaga u hogtay inantana waxaan kula talin lahaa haada dhow iska daa hooyadana waxaan kula talin lahaa ha ka daynin markii aad ku qatay ileen markii hore dhabarjab ay lahaan jirto yaradba gooni ay lahayd marka ninku yaradka dhameeyo inanta islaanta dhabarjab baa la siin jiray timaheedaa la qiimayn jiray waxaan oran lahaa islaantana qiimi ka walaacin oo yaanay faramadhaantu hablaha ku seejinay inanta ku seejinay sidii aad ugu tabci jirtay ugu tacab saasumaan ku talin lahaa. dhegaystayaal intaan ku kulmi doono barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan idinla socodsiinay anigoo cabdikariin nolola oo martiin ugu ahaa abwaan hurro walowal intaan ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. cabdikariin olol aad ayuu umahadsan yahay. barnaamijkaasi sooyaalka dhaqankana asaga ayaa nala socodsiinayay. halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa Washington. bal markana dhinacii ciyaaraha iyo cabdiqaadir mursal.